shirkadda Alberg ee gacanta ku haysa maamulka dekedda magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigtay taag cusub oo casri ah kaas oo wax badan ka tiri doona socdaalka iyo hagidda maraakiibta waaweyn ee xamuulka sida ay ku soo xirta dekedda magaalada Muqdisho. Munaasabad kooban oo lagu soo bandhigay qalabkan cusub ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda, wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas iyo maamulka shirkadda Alberg. maareeyaha shirkadda Alberg Sami Erol ayaa sheegay in qalabkan uu wax badan ka tiri doono howlaha shaqo ee ka socda dekedda magaalada Muqdisho, isla markaana maraakiibta waaweyn ee xamuulka sida ay ku soo xiran karaan. Limana Albayrak firması olarak limana yatırımlarımız devam ediyor. Tekede inta horumarı karno tabartayna horumarına diyara onunla. Somali'nin gelişmesini görmek, halkımızın gelişmesini görmek bizi çok mutlu ediyor. Anaga waxaan ku faraxsanahay Soomaali horumarkeeda. Anagana waxaan meeshan u joognaa Soomaali horumarkeeda. Bu gelişmeye katkıda bulunan önemli bir firma olmakta bizi son derece mutlu ediyor. waxa waqtiga dambe qabanay aad ugu faraxsanahay waan ku qanacsanahay waana wadi doonaa waxyaabo badan. wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Marin Awes Jaamac ayaa kaga mahadcelisay maamulka shirkadda Alberg horumarinta ay ka wadaan dekedda Muqdisho, isla markaana qalabkan lagu horumarinayo howlaha dekedda Muqdisho. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shirkadda Alberg oo ah shirkadda maamusha dekedda Muqdisho oo maanta ay u keeneen dekedda tagbood runtii wax ka caawini doona soo xiritaanka maraakiibta xamuulka saaran ee waaweyn. waa tallaabo hore loo qaaday oo runtii lagu horumarinayo shaqada dekedda guud ahaan, annagoo og runtii waddankeena inuu dib u dhis ku jiro. haddana runtii tallaabadani waxay wax ka tari doontaa kororka dhaqaalaha dalka iyo in dekedeena ay ku soo xiran karaan maraakiib waaweyn oo xamuul waaweyn saaran yahay. qalabkan casriga ah ayaa laga keenay magaalada Dubai, waxaana ka howlgali doona dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoon u leh socdaalka iyo hagidda maraakiibta waaweyn ee ku soo xirta dekedda Muqdisho. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.